wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada waraysi gaar ah oo la yeelanayno wasiir dowlaha arrimaha gudaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliya Cabdullaahi Faarax Weheliye oo hogaaminaya wafdigii dowladda Soomaaliya ee ka qayb qaadanay shirkii dib u heshiisiinta ee Ahlus Sunnah wal Jamaaca iyo waliba Galmudug. Wareen waxaad ka hortaa wasiir doorka dowladda Soomaaliya ay ku lahayd shirkan dib u heshiisiinta ee Jabuuti lagu qabtay. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Waa mahadsantahay walaal. Ugu horreyn horta aad ayaan kaaga mahadcelinayaa waraysiga gaarka ah ee ku saabsan shirkii dib u heshiisiinta ee Ahlus Sunnah wal Jamaaca iyo Galmudug ee maanta wajigiisa hore ku soo idlaaday magaalada Jabuuti. Shirku wuxuu ahaa shir horey loo soo agaasimay runtii oo waqti dheer abaabulkiisu u soo socday. Waxaan dhihi karaa muddo ilaa iyo 4 bilood ilaa 5 bilood ku dhow baa laga shaqeynayay in arrintan xal laga gaaro oo la bilaabo processkeeda. Waxaan isleeyahay processkii ugu horeeyay ee face to face waji ka waji la isku soo horfariisiyay labadii daraf ayuu ahaa. Wajigiisa hore wuxuu ku bilowday seminar sidee loo xalliyaa khilaafaadka ay qayb ka qaadatay igad ay qabanqaabinaysay iyo dowladda federaalka iyo hay'adda SSF ay maaragtay fangareynaysay. Wuxuu socday 4 maalmood. Runtii 4 maalmood wax badan ayay ku barteen labada daraf. Waxaa ka dhacay isdhexgal, wada sheekaysi, wax wada cun, isxog waraysi hoose, kaftan. Aakhirkiina markii ay dhamaatay 4 maalmood waxaan dareemaynay labada daraf inay noohaayeen dad saaxiibo ah inay ka soo baxeen. Waxaa jirtay badan wasiir dadka aad isku keentay inay ahaayeen dad muddo iskhilaafsana oo xitaa diidana inay wada fariistaan. Sidee idinku suurta gashay in hawshan lagu guuleysto oo waliba tanaasul aan laga filayn ay ka soo baxaan? Waa mahadsantahay runtii arrintaas way jirtay laakiin markii halkan la isku keenay kadib juhdi dheer ayaan ku bixinay runtii in arrintaas ay suurta gasho. Annaga wax la cunaynay, waxbaan la baranaynay. Kaftanka iyo dooda dhinaca ayaan ku lahayn intii tartan ku socday, tababar ku socday. Taas ayaa waxay siisay labada dhinacba firfircooni iyo encourage in wixii ay kala aaminsanayeen ay ahayd wax qalad ah oo runtii meesha la gaarsiiyay aan gaarsiisnayn. Marka waxaan aragnaga iyagoo garwaaqsaday baa iyagu iska keen horeeyo oo dhahaya war seminaarka maad wada hadal noogu bedeshaan. Waxaan u baahanahay waa wada hadal laakiin run ahaantii seminaarka ayaa muhiimad u ahayd. Taas ayaa waxay keentay marka inay dadkii isku soo dhawaadaan. Waxa kaloo dadka kala fogeeya markii lagu dhex jiro oo loo kala dab qaaday. Laakiin markii labada qof ee Soomaaliga ah ay meel iskugu yimaadaan ee badar isla cunaan iswaraystaan yani wax badan oo la boonbooniyay meeshay ka baxayaan xalkuba iyagu ka imaanaya. Waa gartay mudan wasiir waxa jirtay qodob kale oo aad muhiim u ahaa heshiiska waxa la gaaray qodobo aad muhiim u ah oo labada dhinac ay gaareen. Haddana waxay aad u adkaatay in la ogaado qodobada ma noo macnayn kartaa wax sama noogu sheegi kartaa qodobada sida gaarka ah heshiiska loogu gaaray iyo sababta keentay in ay dhammaan qaybihii kala duwanaa haddii ay noqon lahayd madaxda dowladda ka socotay haddii ay noqon lahayd Ahlus Sunnah wal Jamaaca iyo haddii ay noqon lahayd Galmudug madaxdeediiba in ay yiraahdaan kama hadlayno intaan halka joogno. Waa mahadsantahay runtii waxyaabahaasi waxay ku tusaysaa dadka Soomaalida gaar ahaan labadii daraf ee wada hadlaysay inay wada hadalka u bislaadeen. Waxyaabihii ay ka wada hadleen ay ahayd waxyaabo iyaga u gaar ah oo runtii iyaga un quseeya. Wada hadalkana xilligiisii wajigiisii koobaad unbaa halkan ka furmay lagu gaaray heshiis horudhaca. Ma ahan heshiis 100% dhameystiran oo loogu talagalay in dadka la wadaago. Heshiiska kama dambaysta ah wuxuu ka dhici doonaa wadanka gudihiisa. Waxaa korjeegteen doona dowladda federaalka ah madaxdeeda. Iyaga ayaa qayb ka ahaan doona haddii la yiraahdo. Sidaas darteed runtii aad ayaan u xakameynay labada darafna ay qayb nagala qaateen in shirkan maadaama uusan biyo dhiciisii ugu dambeeyay la gaarin
inaan hadal aan laysku raacsanayn oo meesha ka bixin sidaad la socoto saxaafaddu qayb ayay ka qaadataa marin habaabinta dalka iyo dadka maskaxdooda waxaa ku jira macluumaad khalada oo aan jirinayn dadka u kala tebiyaan waa uun qayb ka mida saxaafadda waxaa tusaale kugu filan shirka bilowgiisii wixii lasoo qoray anigoo shirkii furay ood ogeedad goobjoog ka ahayd baa la yidhi wasiirkii shirka waa loo diiday waana hadal aan sal iyo raad midna lahayn ee brobagand la aruuriyey marka waxyaabaha noocaas oo kale ah ee sal iyo raadka lahayn in ay maaragtay ummadda kala geeyaan iyagoo isku dhow ayaan ka hortegaynay labada darafna arrintaasu si hagar la-aan ah oo kalsooni ku dhisan tahay ayay runtii uga shaqeeyeen waana ku mahadsan yihiin waxaa jira ballanqaadyo dowladda ay u samaysay mas-uuliyiintii kala duwanaa maxaa yeelay galmudug lafahanteeda mas-uuliyiinteeda khilaaf xoogle baa ka dhexeeyey waayadii xilka la iska qaaday waayii kuwii kale ka qaaday waayadii borbaleen badan uu jiray markii halkan iyo muddadii shirka la joogana waxaad moodaa inay ahaayeen dadka dad isku jecel marka la fiiriyo sida ay isugu dhawaayeen sida moogtahay ay wax wada qaybsanayeen wax oo dhan marka ma waxaa jira ballanqaadi gaar ah oo dowladda ay u samaysay dhinacyadaas runtii waxaan dhihi karaa wax ballanqaad gaar ah ee ay dowladdu dhinacyada ka mida ama labada dhinacba u sameyday ma jirto laakiin waxaad ka dheehan kartaa in galmudug iyo ahlu sunna labaduba ay bislaadeen oo ay u bislaayeen arinta dib u heshiisiinta iyo wadahadalka inay hore u wadaan oo arintaas ay meel kusoo dhammaato sidaad og tahay galmudug iyo ahlu sunna labaduba shacab iyo bulsho ayay matelaan bulshadiina in intaa ka badan sii kalama qoqobnaan karto marka way garwaaqsadeen dowladda federaalka iyaguna way wada garwaaqsadeen sidaas daraaddeed in heshiiskan wuxuu muujinayay labada dhinacba uu dhab ka ahaa dowladda federaalka laftirkeeda ay juhdi aada u badangelisay in lagu guuleysto shirkan waa gartay mudan wasiir waxaa jiray arrin la xiriirta shirkan waxaa martigeliyay urur goboleedka igaad inkastoo dadka wada hadlaya ay soomaali ahaayeen haddana gabagabadii shirka igaad waxa ay dalbatay in shirka inta lagu joojiyo saxiixana laga dhiga meel kale sida wararka qaar ay sheegayaan oo aad sabab laga dhigo taa waxaa la sheegay in dhinacyadii heshiinaya ay ka biyadiideen oo ay sheegeen in haddii meelba lagu heshiinayo ay ku heshiinayaan dalkan oo ah dalkoodii laba waa mahadsan tahay arinta ah igad inay shirka garwadeen ka ahayd waa sax waxaa garwadeen ka ahaa oo kasii weyn dowladda federaalka igad iyo dowladda federaalka way iska kaashadeen shaqadan si habsami u socod leh ayaana ay u socotay hawshu warka dhahaya igad baa waxay tiriyeen halkan wax lagu saxiixin iyo adisababa wax lagu saxiixayaa waxyaabahaasoo dhan waa hadallada aan beyska lahayn ee runtii la buunbuuniyey ee aan dhihi karo waa waxaan waxba ka jirin heshiiskii saxda ahaa ee kama dambaysta ahaa waxaa lagu saxiixi doonaa wadanka go-aankeedana waxaa iska leh dowladda federaalka iyo labada daraf ee wada hadlaya inta badan waxaa la yidhaahdaa madaxda soomaalidu waxay og yihiin caalamka oo dhan waa ogyihin haddii ay noqon lahayd dadka heshiinaya oo kale iyo haddii ay noqon lahayd shirarka gaarka oo kale ah goormaal gaar horumarkan ah in arrin socotay 8 cisho aan waxba lagu ogaan taasi waxay ku tusaysaa sida soomaalidu isku bedeleen waxay ku tusaysaa bisaylka soomaalidu ay gaartay waxay ku tusinaysaa sida ay diyaar ugu yihiin inay umuurahooda si nadiif ah ku xalistaan waxay ku tusinaysaa sida dowladda federaalka ah ay arintaas diyaar ugu tahay oo ay maaragtay gacan mugle ay uga geysanayso oo ugu dadaalayso dowladda federaalku waxay keentay in labada daraf iyadoo ciidina aanay ku dhex jirin ay wada hadlaan waxoodan xalistaan markii jiid yimaado waxyaabaha qaar la isku qabsado waa laga yaabaa inaan talo iyo tusaale iyo usoo dhex galno laakiin shaqadooda iyagaa qabsaday 100% taasina waxay ku tusinaysaa in isbedel yimid marka waa qayb isbedelka ka mid ah mudan wasiir waxaa la sheegay wararka qaar ay sheegayaan inkastoo aanay si official usoo bixin in xildhibaanada laisku biirin doono labada dhinac oo laisku dari doono in mas-uuliyiinta laisku biirin doono marka ma waxay noqon doonaan maamul goboleed ka baaxad weyn maamul goboleedyada kale
oo dowladdu ma filaysan inuu culays ku noqon doono mase waxaa dhici doona tanaasulo fara badan oo labada dhinacba ah isla markaana waxa ka soo bixi doona dowlad wadaag ah oo dadka ka qayb qaadanaya ay yihiin kuwa lamid ah kuwa ka jira maamul goboleedyada kale ee Soomaaliya labada daraf ee wada hadalka waxay ku heshiiyeen in khilaafaadkooda ay dhameeyaan oo heshiis dhammaystiran oo nabadgelyo ah oo ay labada dhinacba ku qanacsan yihiin iyo dowladda federaalka ahba lagu gaaro wadanka gudihiisa ma rabo inaan tafaasiisha ka hor dhaco aad oo maasanta mudan wasiir waxa kale oo jira maanta kulan in aad la qaadateen madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti oo wadankan Djibouti oo ah wadankii labaad ee dadka Soomaalida madaxweynaha kulan waxa kula qaadateen xarunta qasriga madaxtooyada ee dalka dhammaan qaybaha kala duwan oo u dhanaydeen waxyaabaha sida gaarka madaxweynaha uga hadasheen waxa kamid ah runtii madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle aad ayuu wuxuu ugu faraxsanaa heshiiska horudhaca ah ee lagu gaaray magaalada Djibouti waa Soomaali aad buu ugu danqanayaa xaaladda Soomaaliya ajenda gaar ah oo aan ka wada hadalnay runtii ma jirin waxaan ugu tagnay waxay dardaaran iyo duco wuuna ku duceeyey heshiiska wuxuuna nagula dardaarmay in inta ka dhiman insha Allah sida ugu dhaqsiyaha badan la dhameystiro nabad iyo guulna uu ku soo dhamaado wuxuuna Ilaahay uga baryay in heshiiskani uu noqdo heshiiskii ugu dambeeyay galmudug iyo ahlu sunna lagu xalinayo inuu noqdo oo aanay dhicin inuu kanu dhicisoobay mid kale soo noqdo marka taasna waxa waaye waa anaguna waa uga mahad celinay marka intaas buu ahaa runtii marka ugu horeysa shirkani wuxuu ahaa shir muhiimad gaar ah u leh dhammaan dowladda federaalka ah madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa runtii dadaal dheer iyo juhdi dheer wuxuu u galay sidii loo soo gabagabay lahay khilaafaadka galmudug iyo ahlu sunna ra'iisul wasaaruhu sidoo kale wuxuu amar cad nagu siiyay in si hagar la'aan ah looga shaqeeyo dib u heshiisiinta labada daraf runtii aad ayaan uga mahad celinaynaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxaanan ku shaqaynaynay dhiirigelintii gaarka ahayd ee ay nageliyeen waajibaadka ay noo igmadeen sidoo kale muhiimadda shirkan uu leeyahay waxaa aad iyo aad u muujinaya oo aad ka dareemaysaa 8 maalmood in madaxweyne xaaf oo aad og tahay howlaha horyaala oo uu la socdo madaxweyne ku-xigeenkiisii oo uu la socdo gudoomiye ku-xigeenkii baarlamaanka oo uu la socdo wasiiro iyo xildhibaano ay ugu dulqaateen 8 maalmood inay halkaa u fadhiyaan sidoo kale dhanka ahlu sunna wal jamaa Sheekh Shaakir iyo mas'uuliyiin badan oo ka mid ah raggii la shaqeynayay ayaguna sidoo kale ay waqtigooda ay maaragtay u soo horeen 8 maalmood inay halkan u fadhiyaan oo har iyo habeenba ay shaqeeyaan marka taas sidoo kale ugu dambeyn maalintii afaraad maalintii shanaad waxaa nagu soo biiray macalin Maxamuud oo wada garanaysaan oo ah hogaamiyaha ugu sareeya ahlu sunna wal jamaa si uu goobjoog uga ahaado marqaatina uga ahaado waxa la isku waafaqayo iyo in wada hadalladu ay noqdaan kuwo miro dhal ah oo aan dheeldheel ahayn marka runtii waxaan u soo mahad u jeedinayaa dhammaan dadka waqtigooda ku lumiyay meesha arinta u soo tafaruqay ilaa ay ka gungaaraan nala joogay dulqaadka muujiyay ugu horeeyo maaragtay madaxweyne xaaf Sheekh Shaakir hogaamiyaha al-sunna wal jamaa macalin Maxamuud iyo intii la socotayba mas'uuliyiintii la wada socotayba marka waxaan leeyahay mahadheedi ka gaarto miraheeda waad arki doontaan haddii alla yiraahdo waana loo aayi doonaa taariikhda idin xusi doonta shacabkiinuna insha Allah waa idin abaalgudi doonaa waa gartay mudane wasiir su-aasha ugu dambaysa ku weydiinay shacabka Soomaaliyeed ee muddo ba sugayay 8 bari la aamusnaa Djibouti la joogay
maxaad ugu baaqaysaa ma war farxad leh mase in weli aan waxba la dhamaystirin shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in ay niyadda furaan heshiiska horudhaca ah ay si niyad sami leh u soo dhaweeyaan khayr ku bishaaraystaan haddii ilaahay idmana heshiiska oo tafaftiran oo dhammaystiranna Soomaaliya marka uu ku dhammaado ay ka soo bixi doonto qodobo u hiilinaya shacabka iyo deegaankaba oo ay ku farxi doonaan gaar ahaan dadka reer Galmudug guud ahaan shacabka Soomaaliyeed marka waxaan leeyahay shacabku ducada badiya aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wasiir dowlaha arrimaha gudaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliya Cabdullaahi Faarax Weheliye oo SNTV ugu warramay Hotel Valencia oo ku yaala caasimadda waddanka Jamhuuriyadda Djibouti tan intaan ku kulmayna waraysi kan lamid ah waxaan idinkaga tageynaa sida iyo nabadgelyo